oo aynu warar ku daawanay waxa bilaabmay wada hadalo Somaliland iyo Soomaaliya ay ku wada galeen Djibouti wada hadalada aad baa loo hadalhayay waxaan jeclaan lahaa runtii bal inaad aragtidiina ka dhiibataan yani wada hadaladaasi ma yihiin qaar ay Somaliland waxtar u ah mise waxaad u aragtaan inaanay haba yaraatay wax saameyn ah oo wanaagsan aanay ku yeelanayn Somaliland marka bal wax nagu horeysiin doonaa xildhibaan Xamsi بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة لي مقاصدة قيمة رسمية من هذا الكشوف. هذا سؤال تقدر تقول قالوا ها سؤال نقول بكسوي سي. هنقول بكسوي سي. مرات كانوا لنا هذا الرسوم أنا نروح ويانا نكبحنا الصومالية. هاسلوح كل من الساعة ولا هذا يكرنا وكل من الساعة. وهذا هذا صدق والله قيمة. مر لبض خوف أي واحد كده حياة ما بين السوقي يعني يجوا من السوقي مثلا والله كلا بحا مركا ما طول من السوق دالان هكا وحبة كمية ما عنده هكا وحبة كمية ما عنده هكا وحبة كمية هكا وحبة مصبحان ولا السوق دالان مر لك النقص بقى شلو عدبا عتمال السوقي أي عدي دقيسة ولا قبل الصلاة مركا عدة دقيسة سنوات كجروها marka saddexaadna charge basada maxkamadu kala weynta labada hormar dhageysto ay cid ku aan soo saartaa taasi khatarteeda leedahay marka waxaan u aaminsanahay guul bay Soomaaliya ka soo hoysay tusaale ahaan ergada aynu inagu diranay ee Soomaaliya ka soo watay dad culus bay haayeen waxaad garan kartaa qiimaha inaga dhigayna ka lahayd madaxweynaha golayaasha qaranka iyo wasiirada iyo seniorada soo waa ku waxaan guusha u soo hoysay sida madaxweynuhu uu garnaqsaday iyo waqti dheer uu hadlayay halka ka soo jeeda muddada yar gaaban ee hadlaysan diyaar u ahayn iyo dadka meesha ka socotayada halka marka la eego Somaliland baa tayo wanaagsan marka arrimaha ka soo baxay laftooda waxa weeyaan adduunkii baa inuu garoonay adduunkii baynu ayayna dhageysanayay oo adduunkii baa goobjoog ahaa marka mar walba waynu shiraynaa mar walba waynu la shiraynaa waxba inaga maqan marka waxaan aaminsanahay wada hadalkaasi guul bay Jamhuuriyadda Soomaaliya ka soo hoysay gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرت دي وحويان سؤال دي ماشى لما كانوا دي نمس سيفل سوسايتي أو دواس كتها جرا واحد ماشي حسب كسر هذا واحد شرطين إفراح لكن صرت السومال لا ولا ودلية أنا واحد كتر سنة هاي حسب قعدنا واحد حسب جوين حسبية ده كتر السومال لان ولا مهدي ما أنت ودي وحويان رجل dhalinyarada aanu isleegnay Cabdiraxmaan Saciid baa jooga halkaas oo maanta Soomaaliland xor wax ka fiican maanta ma jirto marka ilaahay cimrigeena ha dheereeyo waxa weeyaan horta waxa weeyaan ninku madaxweynuhu waa tagay meesha waana la kulmay laakiin waxa weeyaan waa gacan uur ku jirta weeyaan waxa weeyaan qofku waxa weeyaan marka heshiis la gaaro way noqdo wax transparent ah waxa weeyaan Soomaaliland way dadaalaysaa meel fiican ma maraysa wada hadalkuna uu fiican yahay laakiinse waxa yara fool xumeed qodobadii inta la soo saxeexay markii airport laga soo degay kabacdi la yiri technical baa dhacay oo error baa dhacay la saxayo marka waxa weeyaan taas way yaraadagtay laakiin hadana waxa weeyaan Soomaaliland horta dib u ku maasay madaxweynaha Soomaaliland si fiicanna arrinka uu galay xisbiyada mucaaradkaana uu la kulmay gartiisana waa akhristay laakiin dad aan gartooda qaadanahayn ayuu la tagay waayo nin dagaal kugu haya oo kule waxaan deganahay buuhoodle iyo baran haddana ku imanaya waxa qofku marka hore waan loo sheego la wareede heshiiskan uu fiican yahay kuwii horena waxa weeyaan in laga gaaro go'aan laakiin anagu haddaanu xisbiga u cidnahay waanu soo dhaweynaynaa wixii wada hadalana waxa weeyaan waa guul u dhalatay laakiin waxa weeyaan wax kasta waxa leeyin la eego hadda waxa jira qodob leeyahay dadku way isdhex marayaan dadku waxa weyn waa ehel wala isdhex marayaan laakiin waa in la haataa immigration ku waanu si fiican u shaqeeyaa waanu shaqeeyaa fiisooyin ku waanu shaqeeyaan teeda kalena lagala hadla mesela loo kale imika Soomaaliyeed la heshiinayna
dee waa 5 Soomaaliyeed weeyaan Puntland iyo maxaa la yiraahdaa galmudug iyo Kismaayoland iyo Baydhabo-land marka waxa weeyaan horta iyagu meel mijaasku ururiyaano imika waxa baan arkayay Puntland oo ciidamo keenaysa xadka u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland waxa weey marka nimankan Soomaaliya la leeyahay waa dad walaalaheena laakiinse taariikhda waa laga sheekay waxa la ID 94 kiba la qiibay de waxa weeyaan saasa laan qeyrey loo mariyay imika waxa weeyaan Soomaaliya degan Somaliland deereerahoodu waxay degaan Ethiopia marka hadda kuma haysana loo kumilin haddaanu nahay reer hebel oo reerkayga degay la jigjiga marka waxa weeyaan taasina waxa weeyaan dadka مثلا كله ليدرada ay Soomaaliya jooga waa inay ka fikiraan waxa dadka u fiican waa in la wada hadlaa si security loo ilaaliyo si dadku u noolaadaan si wax barasho loo gaadha laakiin si adduunka kasaba ka fikiro kursi yar oo fadhiiso anigu tuuladeedii baan ka dhigay madaxweyne ku-xigeenkeena waa reer hebela taalo ma baahna laakiin si hadalkayana ku dheeraan waxa weeyaan anigu soo dhaweynayna wixii afgarada heshiisa laakiin heshiiska siisa waa loo socodsiyaa waana mahadsantiin salaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu بسم الله سؤال واحد بان فيليا wadahallada imika bilaabay faa'iido ma u leeyihiin Somaliland waxay ku xiran tahay horta mar walba waxay ku xiran tahay sida anigu aan fikirkayga waxa ka soo baxa yani wadahallada waa bilow lagama hordhici karo faa'iido iyo khasaaro way noqon karaan laakiin mabda'iyan amba principe in la wada hadlo waxaan arkaa waa wax fiican way alternative kale jira amba wadada kale jirta waa waxa weeyaan dadka dawladda hadli waayaan danahooga ka wada hadli waayaan waa colaad ugu weyn marka in la wada hadlo mabda'iyan waa talaabo fiican faa'iidada iyo khasaaruhuna kolba waxay ku xidhan yihiin sida loogu diyaar garoobo iyo kama dambaysta waxa ka soo baxa wadahadalladuna sanad waan qabo waqti badan bay qaadan doonaan maaha wax hal kulan iyo laba kulan iyo bil amba sanad waxa ku dhamaanaya marka dadkeena waxa yar moodaa waxoogaa degdeg inay moodayaan in arrimaha waaweyn laga wada hadlayo inay markaba soo dhamaanayaan oo la kala goynayo taasna runtii ima muuqato marka in waqti la siiyo oo aan laga degdegin ayaan ku talin lahaa marka faa'iidadu waxay ku xidhan tahay waxa ka soo baxa بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مداشن ألمانتو كلن سمعي oo lixdan guuridii ka soo wareegatay qarannimada Somaliland waxaan leeyahay aad iyo aad badan ugu mahadsantahay walaalaha ka soo qayb galay horta marka koowaad walaalayaal waxaan soo geysinaa muhiimadda aan halkan fadhinaa waxay tahay inaan marka hore qaran jira ahayn 60 sanana maanta ay ka soo wareegatay 60 kaasina laba horta kala qaadanaa 30 hore iyo 30 dambe soddonkii hore burbur iyo dhibaato iyo wareer ayaan maaragtay ku jirnay soddonkii dambana waa idinka arkay barwaaqada iyo guulaha iyo sida aan maanta aan u noolnahay taasaan ka leeyahay talabaadee su'aasha wada xiriirkii ka dhexeeyay Somaliland iyo Soomaaliya iyo wada hadalladii Djibouti annaga ka kulmiye ahaan waad ogtihiin oo qarankan Somaliland waxa uu ku yimi dimuqraadiyad madaxweynayaashii dalka soo maray shantii madaxweyne waxay ku yimaadeen food gacan baa la taagay dadkii baa saf galay dimuqraadiyaddana wax dadku ay goosteen in Somaliland soddonkii hore ay ku qasaareen oo soddonkan dambena ay ku faa'iideen marka xisbiga kulmiye barnaamijkiisa siyaasadeed ayaa waxa ay ahayd inaan meesha la iska fadhine bal walaalihiina Soomaaliyeedna aan miiskooda hadalkooda nimaadno aan maaragtay wada hadalno dhibkiina soo gaaray iyo Somaliland inaan hadda qornimadeena dib uga soo noqon aan ka wada sheekeysano waxaana ku dhiiraday in wada hadallada Soomaaliya la furo xisbiga kulmiye uu madaxweyne marka uu ka ahaa taladan uu dalka hayay madaxweynena qaar Allah siiyo cimriga Ilaahay ugu dheereeyo Axmed Siilaayo xisbiga kulmiyana
taladii uu beriga uu qabtay ee go'aankii uu gaaray bilowgii waa laga yara waxa muddo dadku xitaa inay si kale u arkayeen haddana waa aragteen faa'iidada maaragtay laga dhaxlay ilaa heer aad shalay aad ku arkayseen garnaqsigii xoogga badnaa ee caalamka ay u fadhiyeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu maanta u joogo sida u garnaqsanayay ha uga baqina xisbiga kulmiye ha uga baqina dalka inuu maaragtay meel kale u geeyo ama uu maaragtay uu dib ugu celiyo midnimadii Soomaaliya laakiin waxa uu dalkan u rabaa in uu horumarna gaarsiiyo uu dalkina maaragtay xorriyadiisa uu soo celiyo shacabka Soomaaliland ka shacab ahaan iyo ka xisbi ahaan waxaan rajaynaynaa inay nagu taageeraan hadda waxaan arkayay walaalkay garab fadhiya doctorka oo ka socda xisbiga oo na taageeray aad iyo aadna uga mahad celinayaa xisbiga ucid kulmi wadanina aad buu noo taageersanaa marka siyaasadda kulmiye meel fog bay idin gaarsiinaysaa waxana waa iska bilow caadifadiina naqaadin waad ogeedeen berigii dekada sida aan ku ahayn sida loogu kala jabsanaa haddana faa'iidada laga gaaray marka faa'iido baan u soconnaa garnaqsi baan u soconnaa madaxweynahana looga baqi maayo inuu maaragtay dib u celiyo Soomaaliya oo noogu celiyo horumar iyo baraaraynu ka gaaraynaa intaasaan inta aan ka leeyahay marka guul baynu ku dhamaysanaa insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bravo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واندي ود السلام يا مدنيال يمري وينبا قفل بس الدرد كفدي قروح تبدل لبان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحي هيد لحيلاتم كيتشون أو لحدن صرنا أي كسور يكتي waxaan moodayay in dadkoo dhan microphone-ka intay wada qaataan la wada hambalyeeyo madaxweynihii la hambalyeeyo intii dhimatay maxay hitolay loo duceynayo laakiin waxay noqotay doodahan oo kale waxay ku fiicinaayeen mar kale inay jaaliyaduhu inoo qabtaan maxay hitolay sideen wax badan oo inaga guuxaya maxay haytolay aan soo saarno laakiin taan maanta oo kale aan waxaan u arkayay in maxay haytolay la hambalyeeyo dalkii iyo dadkiiba lana dhiiri gelinayo ciidamada qaranka ee xuduudaha fadhiya ee wax yar oo misqaala darata la siiyo oo mushahar qaadan wax yar qaata oo maxay cashuur ka qaata kuwaas un baan maanta dhiiri gelin lahayn waxay u socdaan in ahaato hadafkii intaas waa iga hordhac waxaan aad u salaamayaa waan maanta maqlay safiir ku xigeen inuu jiro aad baan ku hambalyeynaya waa ku soo dhaweynayaa soo dhawo waan ku leeyahay insha Allah hablaha reer Stockholm-na way kula kulmi doonaan gacmo furan ku soo dhawo insha Allah aad baad u mahadsantahay waxa weeye wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland maxaa idana faa'iido inoogu jirta way inoogu jirta sida inamadaas oo ay yiraahdeen faa'iidada inoogu jirta waxa weeye de meel ban intaynu wax dhiganay oo cid isku darsanay ayaan nuri wixii aan isku darsanay baan dib u la soo noqonaya marka inaad waxaagi hadaad faa'iido ku helwado dukaan hadaad imkaad meel ka furogtidood dad ganacsadayaal aad wadatiin oo faa'iido kugu tari weydo dawaad kala soo noqonaysaa mise waaba masiir dhan iyo wadan dhan iyo dal dhan oo umad lahayd inaad wax ka gaadhid oo waxaagi hadaad waxba ku dhali weydo dib uga soo noqotid waa mid meesha ku jirto waajiba marka waxa weeye qofku haduu gar leeyahayna sidiisaba mar walba haduu gar leeyahay lagama gar helo madaxweynihii waan hambalyeynay si wanaagsan buu hadlay ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo wixii nacam dhiigiisina wuu huray codkiisina wuu huray oo codkiisina wuxuu intuu yiri daqiiqadaha kaliya uu ku yiri ma sha Allah tabaarakallah ilaahay oo ilsha cadowga ka haybaan leenahay waxa weeye guul baa ku jirta وانا لو غوليسانay insha Allah hadalka waan soo gabagabeynayna wax yar baan maxay tolay aan doonayna inaan ka wada faa'iideysano intaas waa guul un baan leeyahay insha Allah waqtigeena ugu yar panelka waxaan aad u mahadsantihiin waxa soo qabsan doonaa